gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ucid injineer Faysal Cali Waraabe oo maanta qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlayay magaalada Hargeysa ayaa ugu baaqay xukuumadda Soomaaliland iyo shacabkaba inay u gurmadaan dadka duufaanadu saameeyeen ee ku nool gobolka Awdal. waxaan leeyahay shacabka Soomaaliland meel kasta joogaanba iyo hay'adaha wadaniga ah iyo kuwa internationalkaba iyo adduunkaba waxaan leeyahay gurmad buuxa loo soo diro dhulka ay ku dhacday aafayntu waxa dhacday in xoolihii beerihii oo dhan ay baaba'een horta marka waxay noo haboon marka hore dadka la badbaadiyo oo maanta raashin u baahan yihiin raashinkaas aan dhulka badankooda gaareen lug lagu gaareen waxaan diyaarad ahayn in la soo gurmado dawladdu qaylo dheer dirto si diyaarada loo keen lahaa kabacdina dadka xooli iyo ka dhinteen beerihii si loogu magdhabi lahaa marka waxaan leeyahay hala gurmado Awdal ha loo gurmado bulxaan ha loo gurmado dhulka ha loo gurmado dawladda waxaan leenahay baaq dawladeed sameeya ma leenahay madaxweynaha waxa laga rabaa inuu soo fadhiisto inuu dadka la hadlo inuu tacsiyadeeyo dadka dhintay dadka xoolo ka dhamaadeen siiyo oo halka state fiican ka soo bixiyaan madaxweynaha ka codsanina aanu wareegto oo soo qorin inuu hadlaa way hadlaa sidoo kale gudoomiyaha Faysal Cali Waraabe waxa uu ka hadlay dagaalka soo noqnoqday ee labada beelood ee walaalaha ku dhaxmaray deegaanka Ceelafayn waxaanu sheegay in loo diri doono guddi xul ah kuwaasi oo xal rasmi ah ka gaari doona colaadaasi waa arin dawladdii hore tama ku ceebaysan yihiin si aan uga daba tagno ceebta dhacday iyo qaladka dhacay ee dawladda tii horeba oo inuu gaalna xal waara marka xabadda joojisaan ayaynu dadkii geli lahaa reer Soomaaliland oo xul ah oo raggii hore ugu fashilmay aan ku jirin ayaynu soo cinaa oo kamid yahay dadka aan soo cidoono على قال خليف كمد ياهي وكمد عبد الرحمن أو علي كمد ياهي وكمد ياهي ديال حسن عيسى جامع وأنو كمد ياهي يدي كلام كورسان إنه أي أرنتا جلسة إنت كلو جلسة ما جرت بدك يكون فشل ما يدي بدهم دقنا gudoomiyaha Faysal Cali Waraabe ayaa sidoo waxa uu shirkii siyaasi jiray maanta kaga hadlay dagaalka ay isku hor fadhiyaan ciidamada Soomaaliland iyo kuwa Puntland aqli galama yaani inuu waalin xuduudan laba bedeliyo dadkaan intay wax damba inaga raacaan maaha xaqna waxaan nagu leenahay xuduudida tagno xuduudna waxaan ku teginaa ogolaashaha dadka degan ee ummadda degan ee reer Sool baan ku deegnaa reer Tukarqa baan ku deegnaa marka waxaan leeyahay aqligu ha shaqeeyo laab kaciyaano shaqeynin baaq baan u dirinaa simada dhulkaas reer Garowe reer Boosaaso waxaan leenahay aqli ka qabta siyaasiyiintan waxaan aqli gelin ku shaqeynaysaa مختار اسماعيل علي تلفزيون كيونيفرسال هرقيسة.